madaxweyne maxamed axmed caalin ayaa isna gaaray magaalada muqdisho waxaana uu sheegay inuu halkaasi u tegay oo ujeedada socdaalkiisu ay tahay sidii uu soo afjari lahaa khilaaf u dhaxeeya maamulka galmudug. cabdiqaadir cali xuseen koronto ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho. madaxweyne maxamed axmed caalin oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada muqdisho ayaa shir jiraa'id uu qabtay waxa uu kaga warbixiyay ujeedada socdaalka uu ku yimid magaalada muqdisho. madaxweyne caalin ayaa waxa uu sheegay inuu muqdisho u yimid sidii uu uga qayb qaadan lahaa ka gudbidda marxaladda kala guurka iyo geedi socodka nabadda dalka Soomaaliya iyo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ragaadiyay maamulka Galmudug State. safarkaygan waa badan yahay arrimaha galmudug waa u socday arrinta Soomaaliyana oo kala guurka ah oo xilligeedu gaaban yahay hadda wax yar ay u hareenna waan u socday marka faahfaahinteeda oo dhanna waan bixin doonaa haddii alla yiraahdo galmudug baryahan dambe khilaafaad ka jiray oo waataad maqlayseen wax la yiraahdo xoog iyo laaluush iyo hanjadaad wax ku socon karaya ma jiraan ummadda ayada dhisatay maamulkan ayaga raalli ka ahaa ayaga galguduud iyo mudug way magacana wuxuu ka kooban yahay dadka deegaanka degani waxa ay rabaan ayaa soconaya waxaan sharci ahaynna meel la gaarsiin karo haba yaraatee male 6 sano ka bacdi waxaan rajaynaynay inay sii fido oo sii balaar sii xoogaysato isma xoog leh oo qolo walba ay ka qayb qaadato qaybta ay leedahay ayay ahayd inay maanta gaarto laakiin waxaan moodaa nasiib daro anagaas magacawnay annagaa dhisanay annagaana wareejinayna annagaana waxaan socon karin waaye. imaatinka madaxweyne maxamed axmed caalin ayaa imaanaya xilli khilaaf baasan uu ka taagan yahay maamulka galmudug ka oo salka ku hayo xilka madaxtinimo ee Galmudug State. cabdiqaadir cali xuseen koronto Somali Channel muqdisho.